Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa waxay ku dhacday nin u dhashay dalka Hindiya. Ninkani ayaa wuxuu degnaa isaga iyo xaaskiisaba meel baadiye ah, waxayna ka fogeeyeen magaalada. Ninkani tuulada uu deganaa waxay tuulo aad u buuro badan, ma aysan lahayn waddo toos ah oo looga aadi karo magaalada. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, ninkani xaaskiisa waxay xaamilo meel buuro ay ka soo dhacday, waxaana gaaray dhaawac. Ninkani wuxuu ku fikiray inuu xaaskiisa u soo qaado magaalada si uu u geeyo isbitaalka, hase yeeshee waddada ma aysan waddo toos ah oo waxay waddo buuro kaliya. Tuuladiisa iyo isbitaalkana waxa u dhaxaysay 70 kiiloomitir. Baabuurka ambalaskan ah ma uusan awoodin inuu halkaas soo gaaro, maxaa yeelay ma aysan lahayn waddo toos ah oo lagu imaan karo. Ninkani xaaskiisii ayuu soo qaaday, hase ahaatee waxay ka qaadatay muddo inuu soo gaaro isbitaalkii. Xaaskii dhex ayay ku dhimatay, waxayna u dhimatay dhiigbax. Ninkani ma uusan awoodin inuu tilaab qaado, maxaa yeelay ma uusan heli karin sidii ugu soo gudbi lahaa isbitaalka xaaskiisa. Ninkani markii xaaskiisii dhimatay aad ayuu u murugooday, markaasuu wuxuu dowladda ka codsaday inay waddo ka sameeyaan tuuladiisa iyo magaalada si aysan dadka halkaa degan ugu dhibaatoonin markii u baahdaan magaalada ama isbitaalada. Ninkani muddo ayay ka qaadatay inuu dowladda ku qanciyo inay waddo ka sameeyaan, balse markii uu arkay inaysan dowladda waxba ka soo soconin ayuu wuxuu go'aansaday inuu isaga naftiisa halkaa waddo ka jeexo, waxay ku qaadataba. Ninkii qalabkiisii ayuu soo qaatay, wuxuuna bilaabay inuu buurtii u dhaxaysay tuuladiisa iyo magaalada jabinayo. Dadkii markii arkeen aad ayay ula yaabeen, wayna ku jeesjeeseen oo waxay yiraahdeen ninkii maanji ahaa waa uu waashay maadaama ay xaaskiisa ka dhimatay. Ninkani dhag jaraq uma uusan siinin waxa ay dadka dhahayaan, balse wuxuu ku dhaqaaqay go'aankiisii. Wuxuu bilaabay inuu buurtii jabinayo. Waxay ka qaadatay inuu buurtan jabiyo muddo dhan 22 sano. Wuxuu bilaabay jabinta buurtan taariikhdu markay ahayd 1960 ilaa laga gaaray 1982 ayuu ninkani buurtan jabinayay. Maalin waliba wuxuu soo aaday buurta, man aysan ka muuqan wax daala ama quusasho ah, balse wuxuu ahaa nin ay ka go'an tahay inuu halkan waddo ka furo. Waxaana mar wali ku taagneed sidii foosho xumeed ee xaaskiisii ugu dhimatay, taasna ay sabab u ahayd in la waayo waddo toosan oo naagtiisii lagu badbaadiyo. Ninkani ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay inuu halkaa waddo ka jeexo buurta dhexdeeda, wuxuuna ka jeexay waddo dhererkeedu yahay 110 mitir, ballaceeduna uu yahay 9 mitir. Masaafada u dhaxayso ninkan tuuladiisa iyo magaalada ayaa markii hore waxay ahayd 70 kiiloomitir, hase ahaatee markii uu buurta jeexay ayaa waxay noqotay masaafadii 7 kiiloomitir oo kaliya. Ninkani wuxuu ku guuleystay inuu u sahlo dadka halkaa degan inay u helaan waddo ay u mari karaan iskuulada ama macaan magaalada ay u baahan yihiin. Ninkan reer baadiyaha 22 sano muddo ah wuxuu ku guuleystay inuu halkaa ka jeexo waddo aysan awood u yeelan dowladda inay ku sameyso 3 bilood. Ninkani ayaa waxa lagu magacaabay ninkii buurta, wuxuu noqday nin caan ka ah Hindiya dhexdeeda, wuxuu noqday nin u soo hoyay dadkii halkaa deganaa guul iyo inay noloshooda wax ka bedelaan. Dadkii ay waxay bilaabeen inay magaalada si fudud ku tagayaan, carruurtoodana ay geyseen iskuulada, taasoo sabab u ahayd waddadii uu jeexay ninkan reer baadiye ah. Qisadan halka ay ku eg tahay. Qisadani waxay xambaarsan tahay waxyaabo badan oo faa'iido ah. Qisadan waxaan ka qaadanaynaa haddii aad dhibaatooto ha ka quusan nolosha, maxaa yeelay waxaa dhici karto in maalin faraj uu ku yimaado. Ninkani maadaama xaaskiisii dhimatay meel ma uusan fadhiisanin mana quusanin, balse wuxuu ku fikiray inuu xal raadiyo. sidoo kale qisadan waxaan ka faa'iideynaa wanaagga aad ka tagto inuu sii baaqi noqon doono 100 sano ka bacdi, dadkan ay ku nacfin doonaan. Ninkan muddo dheer ayuu wadadan jeexay, balse ilaa hadda waxay noqotay waddo lagu nacfiyo ummadana wax badan ku qabsadaan. sidoo kale qisadan waxaan ka faa'iideynaa inay mar waliba habboon tahay inaad dadka wax ku tarto. waxaa laga yaabaa maanta inay jiraan dad badan oo hanti leh ama aqoon leh ama awood leh, hase yeeshee aan waxba lagu dheefin, dadkana aysan ku nacfinin. Ninkani tabartiisii intay la eg tahay ayuu wax qabtay, balse Allah subxaanahu wa tacaala waa uu ku guuleeyey niyadiisii iyo wanaaggii uu dadka la damacsanaa. maxaa yeelay ninkani intii uu kari karay ayuu ku dhaqaaqay, wuxuuna soo hoyay guul
ay ku nacfiyaan boqolaal qofood ama malaayiin qof maanta ku nool dalka Hindiya. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gambaleelka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.